Dhammaan asxaabta nagu xiran waa salaamantiin. Asxaab badan waxay naga soo codsadeen barnaamijka ASOS in aad uga soo hadalno. Barnaamijka ASOS sax waaye oo xalay markaa idiin soo duubay codkaygana nadiif muusan ahayn. Haddana si fiican maan uga hadlin asxaabay. Marka waxaan rabaa horta qofkii oo yaqaan asaada ASOS-na uu yaqaan asxaabay sidii qaabka loo shaqeynayo CJ-ga qaabka loo shaqeynayo baa loo shaqeeyaa. Maaragta mayga markaad tagto asxaabay waxaa arkaysiin lacag ay siiyaan maanta 3.88 ay siiyaan asxaabay. 3.88 kaasna wax lagu siiyay waxay tahay qofaa lacag ku shubtay asxaabta ka mid ah. Lacag ku shubtay kadib markuu lacag ku shubtay waxay dhaheen adigana waxaa ku siinaynaa 3.88 asagana waxaa siinaynaa 2 xoogaa asxaabay. Waxay idin sheegaa marka qaabka oo lacagta u dhiibayaan meeshaan ku qoran tahay. Meeshas ma jidaan 3.88 kaas waxaa iska leh qofkii oo qofka keenay. Tusaale ahaan anaga wiilkaas keenay linkiga isku diiwaangeliyay waxaa la siiyay 3.88 asina waxaa la siinaa 2.88 yacni asagana 2.88 la siinaa maadaama uu is diiwaangeliyay. yacni qof muusa keenin laakiin 2.88 haddana leeyahay. Anaa asi u dalba maano laakiin ani hadduu ii dalbo qofkii oo maaragtay iska diiwaangeliyay linkigiisa waa ina 2.88 helaa. Marka qaabkaas u shaqeynayaan asxaabay. Waxa kaleeto oo u baahan inaan ka hadlo qaabka inta si u shaqeynaa asxaabay. Meeshaan levelkan oo lacagta qaabka looga qaato daily-ga qaabka ugu soo dhacayo qofkii oo maanta shaqeeyo. Tusaale ahaan yarkaas hadduu wuxuu ku shubtay $100 boqolkiisa waxaa ka helaa boqolkiiba 16 wuxuu maanta shaqeeyo. Tusaale ahaan maalinta wuxuu shaqeeyay $4 tamaam $4 uu shaqeeyay qaabka calculation u sameynayna tusaale asxaabay. Waxaa ku leedahay boqolkiiba 16 qaabka loo calculation gareeyaa. $4 shaqeeya waxaa ku dhufanaysaa inta oo aad ka helayso percentage-ka kadibna waxaa u qaybinaysaa 100 soo jeedaan asxaabay. Maalintii wuxuu shaqeeyay waxaa ka helaa 0.64 lacag badan maahan wax yiris waay. Marka waxyaabaha laga helay saas ku xiran tahay. Kan ku xigo kaleeto level 2 oo kaleeto level 1 waa kan ana diiwaangeliyay qofku diiwaangeliyay oo kaleeto haddii uu ku shubto $100 oo kaleeto oo maantana shaqeeyay $4 qofkaas waxaa lagu dhufanaa 8 kadibna waxaa u qaybinaysaa 100 saasa ka helaa asagana lacagtiisa hafiisa waay. saas oo kaleeto level 3-gana marka 4 keeshid waa ku dhufanaysaa asagana $4 uu shaqeeyay waxaa ku dhufanaysaa 4 waxaa u qaybinaysaa 100 0.16. Marka asxaabay qaabkaas waa qaabka oo calculation-kan loo sameeyo. Kan qaabkaas loo sameeyaa. Marka asxaabay suuqan wuu shaqeynaa oo lacag oo ku shuban kartaa waana kala bixi kartaa. Marka waxaan rabaa in ay tuso asxaabay qaabka looga shaqeynayo suuqan. Meeshas graph muujida soo furaysa. Graph ka soo furtana ku soo baxayso. Saan markii ku soo baxdo waa inaad taabataa graph-kaas ana qadkayga xun xooga graph marka taabato maybe asxaabi uu tirina umaleyna saan asxaabay maybe ani inuu ii diidan yahay maadaama aan lacag ku shubanin oo 3.88 ka ayaka ii siiyaan inaan loogu talagalin suuqa lagu shaqeeyo. Sababtana waxay tahay asxaabay level 1 waxaa ku noqonaysaa waa kana level 1 waa in lagu fasaxaa yani inter condition are not met waa in oo maaragtay limit-kayga uu noqdo 10 kadib lii fasaxa konton order inaan maalinta qabto. Haddii rabtid inaad noqotid VIP-gan waa inaad ku shubataa 100 kadibna konton order qabanaysaa. laakiin waxaa lagu bedelaa commission-ka 4.45 waaye commission-ka 4 loo ahaa kan 45 waaye kan oo kale 500 ku shubanaysaa commission-kaaga waa 5 laakiin asxaab qaabka loo shaqeynayo graph-kaas aad taabanaysaa markii lacag kugu jirto waa in recharge-kaaga lacagta aad dhigato suuqan waa inuu yahay
10 waa inuu yahay meeshaas oo 3 uu yahay waa inuu 10 ku noqdaa. Kadib waa markaa asxaabi ay shaqeynayso oo qaabkaas suuqan u shaqeynaa easy waaye. Wax adag ma lahan. Marka asxaabay qof allaala qofku maaragtay cilad uu ka qabsado suuqan oo ila soo xiriiri karaa. Insha Allah anigana waxaan rabaa inaan lacag ku shubto. Isla caawa waa idin soo duubaa video ku shubanaya lacagta insha Allah. Waa idin salaam asxaabi habeen wanaagsan.